asxaabi cashkeena maanta kusoo dhawaada cashkeena wuxuu ku saabsan yahay subquery. Subquery maxay tahay marka? Waa query ku dhex jira query kale. Waxaa lagu isticmaalaa marka aad rabto ama aad doonaysid natiijo taas oo ku dhex jirto query aad hore soo samaysay. Tusaale ahaan waxaad isticmaali kartaa where, from ama select si aad xog gaar ah uga hesho natiijada query-ga kore. Sidee taas u dhici kartaa marka aad la aragno? Si aan taas u ogaano, waxaan tegaynaa SQL-ka. Okay, asxaabi halkan aan joognaa. anaga da waxaan ka rabnaa qaybta products-ka. Marka waxaan dhahaynaa select from waxaa leenahay ama select aan dhahno laba mid ah select dhahaynaa. tan koowaad oo ah product name-ka rabnaa kuwa. waxaan rabnaa kuwa product name-ka. product name-ka rabnaa koma sidoo kale waxaan rabnaa price-ka iyo price-ka. Okay, from waxaa ka rabnaa from products. intaan maxaa noo soo baxaya waa isla ogna waxaa soo bixi doona product name-ka iyo price-kooda. product name iyo price. hadda query-gaana haysanaa. waxaan haysanaa product name iyo price. marka waxaan rabnaa price-kan waxaan rabnaa inaan ogaano kuwa qiimahooda ay ka weyn tahay celceliska guud. sidaan ku arkaynaa marka waxaan samaynaynaa kow inaan dhahno inaan isticmaalno where price oo ka weyn yahay aa leenahay marka where price oo ka weyn yahay. hadda marka subquery-ga isticmaalaynaa. subquery-ga ayaan isticmaalaynaa. marka maxaa leenahay? waxaa leenahay hadda kadib iyo select average price. select average price. average price from products. select average price from products. halkaas waxaa ku haysanaa celceliskan productyadan kuwa ka weyn celceliska. sidee ku arkaynaa marka? xda dhahno waa kana tv iyo laptop iyo fridge waxay ka weyn yihiin celceliska guud ee alaabta. alaabta marka celcelis loo sameeyo kuwa qaar raqiis waaye lacag yar joogaan, kuwa qaarna qaali waaye. marka kuwa qaaliga ah waxay ka weynaan doonaan celceliska alaabta kale. marka waxaa jirto query-ga hoose ee select average price from products wuxuu xisaabinayaa qiimaha celceliska ee alaabta, halka query-ga korane ee dibadda uu soo saarayo alaabta qiimahooda ka sareysa celceliskaas. okay, asxaabi tusaale kale ku diraynaa. markaan waxaan u baahanahay inaan soo saarno dhammaan macaamiisha sameeyay dalabyo kadib 1 Janaayo 2024. sidaan ku helaynaa macaamiisha dalabyo sameeyay marka xilligaas? maxaa leenahay marka? waxaa leenahay select waxaa u baahanahay customer name. customer name aa u baahanahay iyo sidoo kale maxaa u baahanahay meesha uu joogo customerka city. okay, halkan koma aan dhahno from waxaan kaga baahannahay customerska ku jiraan xogtaas from customers aan dhahno marka. kadib maxaase dhahaynaa marka intaan maxaan haysanaa? inta waxaana soo bixi doona dhammaan customerada iyo magaalooyinka ay joogaan. kow query-gaas haysanaa. query kala dhex gelinaynaa marka. waxaan leenahay marka where customer id in kadibna waxaan leenahay subquery-ga aa bilowno where customer id in. okay, select customer id select customer id from orders. okay, maxaa rabnaa marka? waxaan rabnaa xilligii macnaha loo baahnaay 1 Luulyo 2024 rabnaa. marka waxaan dhahaynaa where waxaa leenahay where order date ay ka weyn tahay taariikhdan oo ah 2024 1 bisha koobaad. okay, mar query-gaana soo xiraynaa. kow waxaan inta ku haysanaa macaamiisha, kadibna waxaa halkan kasii helaynaa macaamiisha ka midka ah ee dalabyo sameeyey wixii ka dambeeyey 2024 1 bisha koobaad. okay, aan fiirina marka meeqa macaamiil waaye? hal macaamiil waaye, waa ifraax oo joogto Kismaayo. marka asxaabi inaa fahanaa rajeynaa subquery siduu u shaqeeyo. cashkana halkan uu ku egyahay. waa mahadsantihiin. channelka hadaa ku cusubtahay subscribe noo saar, muuqaalkana like saar. aniga waxaan ahay cabdikaaf nabadgelyo.